aniga qaabka ayaa qaalaha iyo caafimaadka Soomaaliyeed ku dhiga halka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa in loo laabto Ilaahay iyo kutubadiisa aniga shakhsi ahaan waxay ila tahay weydiina waxay tahay ma taageersan tahay in ciidamo shisheeye la keeno Soomaaliya su'aashaas jawaabteeda kulay waad garan kartaa iyadaba waa maya marnaba ma taageersani mana taageeri doono hadii aad leedmo maxay tahay sababta aad u taageersaneen sababta aan u taageersanayna waxay tahay ciidamo Soomaaliyeed maanta uma baahna Soomaaliya hadda ka hor waa la keenay dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay waxaana loo keenay inay dib u habeyn wadanka ku sameeyaan dawladna macnaha u sameeyaan laakiin waxay dhalisay dhibaatooyin fara badan umad badan oo rayidada Soomaaliyeed lagu laayay haddana waxaan u arkaa hadii la keeno ciidamo ajnabi wadanka inay dhalin doonaan dhibaatooyinka ka jira kuwa wax badan macnaha dheer dadka hore oo ilaayeen ciidamaha ajnabi ahana kuwa ka badan la layn doono maxay tahay dhibaatada ka iman kartaa hadii la keeno ciidamo shisheeye dhibaatooyin badan oo kala duwan ayaa ka iman doono tusaale ahaan waxaa ka mid horta marka koowaad dadkan dad aan isku dhaqannahay ma ahan ama isku diinnahay dad dhaqamo badan kala duwan wato diimo kala duwan wato weeye waxa kale oo ka iman karo isku dhac xagga shacabka ah iyo xagga ciidamada sida 93 diba dhacday oo kale taasna waxay keeni kartaa ciidamada maadaama ay yihiin ciidamo hubeysan oo meel degan ajnabina ah kuna adagtay dhaqanka wadanka inay la qabsadaan inay shacabkii xasuuqaan sida 93 dhacday oo kale sidaas awgeed ayay macnaha marnaba aan uga soo horjeeda in ciidamo ajnabi wadanka la keeno maasan luul saash oo reesan ku weydiina waxay tahay ma taageersan tahay in la keeno ciidamo shisheeye dalka Soomaaliya ma taageersani maxay tahay sababta aad u taageersaneen sababta aan u taageersana waxay tahay Soomaaliya sababta u taageersana waxay tahay Soomaaliya uma baahna burburin dambe iyo dhibaatooyin dambe waxa ku filan inta ay isku geysatay ciidamo ajnabi oo aan ugu diin ahayn markii la keeno waxa dhici doonto sidii telefishinada laga daawanay ee Ciraaq lagu sameeyay dadka islaamka ah ee nimanka inta dharka laga dhigay saarayay ayagoo isqaaqaawan waxaana keenaysa diin dadka yimid aan kula diinta ahayn aan kula dhaqankayn ee adiga cadawgaaga marna ma aaminsani in ay dadka la keeni doono oo ajnabiga ah inay wax naga halayaan moogeen waxba noo wanaajineen maxay tahay dhibaatada ka iman kartaa dilka ciidamada shisheeye waxa ka iman kara inay gabdhaha kufsadaan waxa ka iman kara inay cudurro keenaan waxa ka iman kara inay diinteena ay farxumeeyaan ay waxaana aan munaasib noo ahayn ama wadankayga ka mamnuuca ay nagu reebaan luul aad ay u maasan tahay su'aashiidu waa maya sababtu ah ciidamo Soomaaliya hadda la keeno oo shisheeye oo yani hubeysan waxay aad Soomaaliya u tarayaan ma jirto sababtu ah waxaan aniga kulli aaminsanahay inay dhalinayso cadaawad cusub sababtoo kulli Soomaaliya hadda ka hor way ku dhacday ciidamo waxa la keenay yani kuwa Afrikaan kaliya la keenay in ka quwad badan oo international ah oo Mareykan ku jiro oo yani wax badan leh Botswana adduunka dhan leh rafaadka ay keentan waxa waaye ciidamada rafaad weyn ka raacay ugu dambeyntii way ka tageen marka hadda aniga uma maleynayo inay shay intaas la eg ay ku soo kordhinayso ciidamo Soomaaliya la keeno laakiin sameeyay kula Maleeshiyadan 15 sano wadankii maartay degabaaday ka dhigtay in quwad ka xoog weyn oo u xoog sheegata laftigooda la keeno horta kul wax xoog sheegad la dhaha adduunka ma jiraan hadii quwad la keeno hadda ka horan aragnay soo hadda ku sheego kaleeto intaas oo kun ciidan baa la keeno oo wax kasta wata marka haduu Soomaaliya haduu xoog wax ka qaadayo kuwaas ka qaadi lahaa keenay hadda adiga maxay kula tahay nimankan wadanku ka degilay maxaa lagu sameeyaa shakhsi ahaan maxay kula tahay horta Soomaaliya adduunka oo dhan wuxuu u arkaa sibuu u arkaa laakiin Soomaaliya ayada waxay leedahay waxaan ku sameeynaa ragga iyaga wax lagu sameyn karaa ku sheegaya kulay dadkooda aan ku qof walba dad buu leeyahay tuuga ahaado iyo ninka wadaadka dad buu leeyahay Soomaaliya sharci wax ka jira ah yani nin walba dadkiisa ba dhibaato keen dadkiisa loo soo xaliya أنا سؤال جوابتي وحوي إذا مش شيء لكنه متى جرسني سببته وحوي مدحده وحوم لنا إنه بكان علمه إندير علمه مدو كلا مركز دلوبة علمه كلا أو سكدلا على سوء يبصدو
okay maxay tahay dhibaatada ka iman karta haddii la keeno ciidamo shisheeye waxaa dhibaatada ka iman karta waxaa waaye ilmo badan oo iska dhalan inay meeshaas yimaadaan ya dumar badan oo masaakiin ah oo iska gaajeysan inay askarta macnaha ciyaal iska dhal ka dhalaan marka waxaan u maleynayaa inay madaxda u bukaanba in Soomaali cusub ay meesha ka dhalato aad ayay u farsantahay ma taageersan ciidamo shisheeye la keeno Soomaaliya waxaan aaminsanahay dhibka Soomaaliya ka jira in wax uu intaarn yahay wax uu Soomaalida u dhaxeeya haddii xal gaarayaan oo heshiinayaan waa inay dhexdooda ka heshiiyaan waxaan qabaa haddii ciidamo shisheeye la keeno Soomaaliya inay u tahay dabkii jira basiin ku sii shub مثلا waxaan garanaynaa in xasaasiyad fara badan oo u dhaxeeyo Soomaalida iyo dadka deriska khaasatan Ethiopiaanka iyo Habashida runtii haddii dad imaanayaan ayaga ugu soo horeynaya oo interest kala duwan kale wadanka Soomaaliya totally ma rabno ciidamo Soomaali ciidamo maxaa la yiraahdaa ajnabi in la keeno wadankan waana soo tijaabinay gumaysigii Mareykankii waan aragnay waxa ay Soomaaliya ka sameeyeen faa'iidadooda iyo khasaaradooda badan marka saadarteed ciidamo shisheeye totally waa ka soo horjeeda maxay tahay dhibaatooyinka iman kara haddii la keeno ciidamo shisheeye war wax walba waxay keenayaan qas waxay keenayaan ayris waxay keenayaan cudur waxay keenayaan yani waxyaabo aan noqon dabeecada aan noqonin waxay fidinayaan ay sii faafinayaan laaluushka iyo waxyaabihii dhibaatooyin waxay taageerayaan yani waladyada ka sii jira Soomaaliya ayay sii horinayaan marka saas darteed ciidamo shisheeye Soomaaliya inuu ma ku haysan أنا أمسنا إن لكانوا عندما نشيء لكنا because مادام أنت أصدقائك كجير لكنا أو دلاين قبيل إبراهيم سكوا دلاين وحلو بها يدنا نصدق حجرة ونكل بباديو هذه هذا الستوري قال الله سقطه إن جبان أو كله مركي أو second war داعي حالا كان عندما شيء على كاني أو ودنا كنسي كببادي ذاتك كبعد إسك صارين من أنا حاف مهمة إن فكر قفك أو جدد أو فكر اللي دول اللي كانيا إنه يكون إنسان لاجوا قفك دو أذيجها مركا وإسك ببادين كلام عبد الرشيد ميسان dhicirin in ay marnaba soo laabato tii 93 ka dhacday Soomaaliya وصل وان كتبت تاوا محلها جهلمه انه كانت قف Soomaaliya markay oo dashi shay arko loo keeno wuxuu ka fikiraa in lagu meesay ma jecel Soomaaliga waana muhiim laakiin waa qof inuu meel ka fikiraa dhaho intaas 15 sano asdagaalini ismeenini maxaa hadda xal ah waa qasam markay in soo dhaxgalaa waan kala badbaadiyaa ka bacda iska saan aan isticmaalnaa cinaha shisheeyaha aad ay u masantahay ma taageersan tahay in ciidamo shisheeye la keeno dalka Soomaaliya ha sababta ku taageersan tahay maxay tahay marka hore waxa aan rabaa in aan dhaw ciidamada aan kala saaro ciidamada aan ogolahay in la keeno waxa weeye ciidamo islaam ah isla markaana aan garan kara ummad islaam ah oo burburtay dhibaatana soo gaartay muddo 13 sano dhexdoodana iyagu iska hayso kuwaas waxaan ogolahay in la keeno laakiin waxaan ka soo horjeedaa in la keeno ciidamo gaala ah oo dib u geysanayo ummadda Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed meel kasta joogan marka hadii la keeno ciidamo sidaan maqalna waa ciidamo Afrikaan ah oo Kenya Ethiopia iyo wadamada Jaarkana la ka soo jeeda marka miyaa taageeraysaa ma taageerayo ciidamo aan muslim ahayn waxaan taageerayaa ciidamo muslima laakiin ma taageerayo ciidamo gaala ma taageersan tahay in ciidamo shisheeye la keeno dalka Soomaaliya وتغيرسان sababta u taageersan waxa hadaysan ku jirin ciidamada safka hore Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti hadaysan ku jirin waa taageersanaha laakiin Gambia iyo Cameroon haday kiimada waa taageersan tahay sabab waxa taageersan sababta waxa weeye Soomaalida xal way keen weysay intii sana ay jirtay macnaheedu ma inaan ciidamo soo ka rabno ama ciidamo shisheeye rabno hadii Soomaalida ciidamadeeda xal ay keen waayeen nacam laakiin waa inaysan ku jirin wadamada safka hore iyo Ethiopia kamid tahay miyaadan ka baqayn inay dhacday sanadkii 1993 maya sababta waxa taas aqoon darro ka dhacday ma dhacay sababta wax taas waa ciidamada shisheeye misfasto ee faqalad bifahmi laakiin waxa weeye ciidamo dawladda la shaqeynaa dawladdan amarka kale nuqulata in askari Afrikaan oo laga yaabo inay u goyso maxal jirbiilkiisi inuu maartay asxaan ay dadka ka helaan nacam xaaladu ay kala duwan tahay abdu waqtigeeda kala duwan sababtu waxa weeye waqtigaas waqti hor ah laakiin waqtiga maanta jiro ciidamada dadka ay hubka arunay Soomaali abdu ay ku fashilmatay dawladda Cabdiqaasim ayaa wadaas martay marka ma doonayno inaan maalinta ku jirno qiilo waqaale ciidamo hadaysan wadamada Ethiopia Djibouti iyo Kenya hadaysan ku jirin ciidamo yar yihiin oo dawladda la shaqeynayaan waa taageersan si Soomaaliyeed nabad loogu soo dabaalo aad ay u masantahay